السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا ومركل صار لابتي وحن ما تجعلستين لودا كتاب دوانا لمية أخذ كيسة والله مقعبه مذكرات حسن عشماوي أما مذكرات هارب. وأنا لقوا مقعب شريح حسن عشماوي وكمدها وجانكي إخوان المسلمين كا وقتي كوني سقال بقول يقوي كتنكي أنت ودحيسي إلى يكون سقال بقول أفر كتنكي وكمدها وجانكي إخوان المسلمين كا isagu sida shakhsiga ah mas'uulka uga ahaa xiriirkii u dhaxeeyay ikhwaan muslimiinka iyo Jamaal Abdul Naasir. Markaas aynu u fahanno qisada kitaabku ku saabsan yahay iyo dhacdooyinka waqtiga dhacay waxaan u baahanahay in yareen dul istaagno marka koobaad samaysanka ikhwaan muslimiinka iyo qisa ahaan ikhwaan muslimiinku waxay yihiin goortii soo bilaabmeen iyo sida ay u soo bilaabmeen. sidoo slogan khilaafada islaamka ugu dambeysay waxay baabaaday oo lagu dhawaaqay inay duntay 1924 afar sanadood kadib oo ku beegan 1928 ayaa Xasan al-Banna oo ahaa nin wadaada oo dalka Masar u dhashay ayaa ku dhawaaqay in uu sameeyay jamaaco cusub oo lagu magacaabo al-Ikhwan al-Muslimiin. waxa uu uga gol lahaa jamaacada sameynteeda in uu ku soo celiyo hadafkiisu wuxuu ahaa in dib loo raadiyo oo la soo celiyo khilaafadii islaamka isagoo ka soo bilaabaya marka hore inuu ummadda dhiso dadka wax la baro kadib xilka sida lagu raadiyo oo doorashooyin la galo ama xukunka inqilaab lagu qabsado. laakiin nasib xumo waqtiga waxa ka joogay dalkiisa Masar waxa ka tirinayay Ingiriiska gumeystihii Ingiriiska joogay waxaana jirtay boqortooyo Ingiriiska hoos joogtay laakiin dalka Masar u dhalatay oo ahayd boqortooyadii uu 1805 asaasay ninkii lagu magacaabi jiray Muhammad Ali. 1949 ayaa la dilay Xasan al-Banna oo waxa dishay boqortooyadii waqtiga jirtay sida ogeed waxa murshidkii ku xigay noqday oo loo doortay Xasan al-Hudaybi isaga ayaana ahaanaya ilaa iyo inta kitaabkan aynu ku guda jireyno. waxa dhacday marka niman isku magacaabay inay yihiin ad-Dubaad al-Ahrar ama saraakiisha xorta ah ayaa soo baxay oo diidan maamulka boqortooyadii marka boqor Faaruq al-Malik Faaruq ayaa talada marka hayay oo ahaa boqorkii ugu dambeeyay boqortooyadii ama maamulkii maxay tahay nidaamkii uu dhisay qoyska Muhammad Ali. waxa marka ciidanka gudihiisa ka bilaabmay kacdoon ay wadaan niman saraakiil ah oo isku magacaabay saraakiisha xorta ah laakiin asal ahaan dhammaantood ahaa iyaga laftirkoodu niman ikhwaan muslimiin ah. murshidkii guud ee ikhwaan muslimiinka ee Xasan al-Banna markii la dilay 49 waxa bilaabmay kacdoonkaas gudaha ciidanka ka jira waxaana bilaabay niman ikhwaan muslimiin oo saraakiil ah oo doonayay inay inqilaabaan maamulkii markaa talada hayay ee boqor Faaruq iyo boqortooyadaba. waxa dhacday markaa ad-Dubaad al-Ahrar waxa ugu firfircoonaa nin lagu magacaabi jiray Bakbashi Jamaal Abdul Naasir. Bakbashi Yazbashi Saal waxa soo dhan waxay ahaayeen darajooyinka ciidanku ay kala lahaayeen ee dawladda Uthmaniyadu ay adeegsan jirtay kadibna ay adeegsanaysay qoyskii Muhammad Ali. marka Bakbashi marka la eego wuxuu noqonayaa generaal ama kabtan. kabtankaas Jamaal Abdul Naasir ayaa waxa uu ka dhaadhiciyay generaalkii isaga ka sareeyay oo lagu magacaabi jiray marka Muhammad Labib in ad-Dubaad al-Ahrar shardiga ku xiran ee ah qofka soo galaya in uu noqdo nin ikhwaan muslimiina in meesha laga saaro sababtoo ah buu dad badan oo saraakiil ah oo ciidanka ku jira oo kamid ah laakiin aan ahayn ikhwaan muslimiin ayaa doonayay inay soo galaan oo shardigaas hortaagan. Muhammad Labib uu la qaatay wuxuuna isku afkarteen in nimanka saraakiisha xorta ah ee ad-Dubaad al-Ahrar lagu magacaabo inay soo gali karaan ciidan ikhwaan muslimiin ahayn. danta uu ka lahaa Jamaal Abdul Naasirna dan fog bay ahayd in ikhwaan muslimiinka lagu yareeyo kacdoonka ay sameyn doonaan saraakiisha xorta ah ee lagu magacaabo ad-Dubaad al-Ahrar. sidaas oo tahay hadana waa ay ka maarmi waayeen saraakiisha xorta ah in ay la yeeshaan wada xiriir gudahooda ah oo kala dhaxeeya qoladan lagu magacaabo al-Ikhwaan muslimiin sababtoo ah ikhwaan muslimiinku waqtiga waxay ahaayeen jamaaco aad iyo aad ugu leh sumcad wanaagsan bulshada dad badan oo iyaga raacsan ay jireen. sidoo kale waqtigaas koob iyo kontonkii waxaa jiray dagaal kanaalka Suez ka socday oo u dhaxeeyay Ingiriiska iyo maxay tahay boqortooyadii Faaruq. marka ciidanku laftirkiisu dagaalka ku jiray ikhwaan muslimiinkuna dagaalka qayb ka ahaayeen. sidoo kale ikhwaan muslimiinku waxay sumcad wacan ka soo heleen dagaalkii 1948 markii lagu dhawaaqay Israa'iil waxay galeen dalka Filistiin way ka soo dagaalameen way ka soo jihaadeen halkaana sumcad wacan ay ku yeesheen. ikhwaan muslimiinku markaa xiriirka kala dhaxeeya
الضباط الأحرار أما سراكيش حرطة waxay u doorteen ninkan oo lagu magacaabo xasan cashmaawi isaga iyo jamaal cabdinaasir si joogta ay u kulmi jireen waxa ay mar walba wada nidaamin jireen oo wada habeen jireen qaabka ugu tolmoon maxay maamulka lagu kici karo farsamooyinka ay tahay inay adeegsadaan iyo qaababka ay tahay in ay sameeyaan jamaal cabdinaasir iyo sarakiisha xorta waxay bilaabeen hubka loo adeegsanayay in lagu dagaalamo Ingiriiska ee Canal Suez la geenayay qaar kamid inta ay soo xadaan ayay keenayeen guryaha ikhwaan muslimiinka iyo guryahooda si ay hadhow u adeegsadaan marka ay rabaan inay kacdoonka bilaabaan waxa dhacday hadaba waqti ku beegan 1951kii mise 52kii ayaa waxa magaalada Qaahira ka dhacay xariiq weyn magaalada qayb kamid ah gubatay waa xariiq loo yaqaan xariiq al-Qaahira waxayna taasi keentay in dawladdu ay fajignaato oo la baaro dadka guryahooda jamaal cabdinaasir baa la soo xiriiray xasan cashmaawi oo ku yiri guriga hubba yaala hubkaasna guryaha waa la baaraya hadii guriga hubka laga helana waa maxay tahay tuhum weyn baa aniga soo galaya laakiin guryaha ikhwaan muslimiinka dawladdu ma baarayso hubka guriga yaala aan soo qaado guriga geeyo sidaas ayaa xasan cashmaawi gurigiisa lagu keenay hubkii jamaal cabdinaasir wuxuu sheegayaa xasan cashmaawi gadaal kitaabka wuxuu ku sheegayaa in markii la baaray baaritaanada dambe soo baxeen wax cadeeyeen magaalada Qaahira xariiqa iyo gubitaanka la gubay in loo adeegsaday maadada loo yaqaan TNT maadadaasna wuxuu waqtigaas cid kaliya ay haysatay waxay ahayd ama heleysay ciidanka yahay taas waxay farta ku fiiqaysaa marka in الضباط الأحرار سراكيش حرطة iyo jamaal cabdinaasir inay ka dambeeyeen si kasta ahaataba wada shaqeyn aad u wacan baa ka wada dhaxaysay ikhwaan muslimiinka iyo maxay tahay jamaal cabdinaasir waqtiga xataa ragga la shaqeynaya waxa kamid ahaa Sayd Qutb ayaa kamid ahaa oo isaguna maxay tahay ragga taageersan kula jiray waxa dhacday marka ugu dambeyn kacdoonkii waa lagu guuleystay bishii toddobaad 23keedii bishii toddobaad 23keedii 1952kii ayay ku guuleysteen in meesha laga saaro boqorkii boqortooyada ugu dambeysay ee reer Maxamed Ali ee lagu magacaabi jiray boqor Faaruq waxaana sidaa kula wareegay maamulkii talada ciidamada ilaa iyo maanta ay ka taliyaan ciidamada Masar sidii bay uga taliyaan marka laga jaro halkii sano ee Maxamed Mursi uu talada hayay jamaal cabdinaasir waqtiga uu talada qabtay waxa uu bilaabay markiiba dadkii ugu dhawaayay si ku soo xigay inuu ka takhaluso inuu la dagaalamo طبعا isagoo markii talada toos uma qabanin marka waxa la doortay madaxweyne waxa loo doortay inuu magacaabi jiray Ali Mahir oo loo doortay inuu muddo 2 sanadood maxay tahay kacdoonka hogaamiyo hasaatee markii sarakiisha xorta nimankii isu magacaabayay oo jamaal cabdinaasir hogaaminay waxa arkeen ninkani qaabka iyagu doonayeen inuu u shaqeeyo inaanu ahayn inuu shaqeynaya sidoo ka takhaluseen waxa loo doortay madaxweyne mar kale ninka lagu magacaabo al-Liwaa Maxamed Najiib كتاب أي قرية سجنا وبحي كنت رئيسا لمصر مصر بان مدحونا وصاها مدة كدبنا دورشة يا الله داريري دورشة أنا وحكوسة بحي سيد اللي في مركي هربا جمال عبد الناصر سيد أي جمال عبد الناصر كنا خضي حياتي نيكا هايستا ثلاثة عيدانكا يدلكا وكعنبرة كوما ملي واحد بالعملتين مركا إن ومركي بلا تجعلمي نمكي قانون مسلمين كها سوء adeegsaday heer kan soo gaarsiiyay oo la soo shaqeeyay oo marka tirsanaa xataa xarakada kamid aha nimankii inuu colaad u qaado ayaa dhacday inuu ugaarsado inuu xirxiro muddo 2 bilood oo kaamila ayaa la xirxirayay nimanka aqoon muslimiinka oo la eriyay oo meel ay taani cib dhigaan la qabanay waxa dhacday Xasan al-Hudaybi iyo ninkii murshidka guud ahaa aqoon muslimiinka waqtigaas lagu magacaabayay Xasan al-Hudaybi inay guri ku dhuunteen magaalada Qaahira kamid ah kadibna ay baxsadeen magaalada Iskandariya hadana ay tageen halkaas ay guri wada degeen waxa ikhwaan muslimiinka marka kulamo hoose ay isugu yimaadeen ay ku heshiiyeen 29 bisha Oktoobar sanadka 1954 marka ay sanadkaas ku jireen isla 29 bisha Oktoobar in ay sameeyaan kacdoon silmi ah waxa jira wax loo yaqaan al-jihaaz as-sirri ama kooxda sirta ah waa koox sir ah oo kamid ah ikhwaan muslimiinka oo asaasay Xasan al-Banna kooxaasi waxay qaabilsanayd hubka iyo dagaal wixii loo baahdo difaac aday noqoto day ikhtiyaar noqoto niman sirab ay ahaayeen jiray marka waxay ku heshiiyeen in maalintaas ay mudaharaad sameeyaan bulshada kiciyaan jihaaska sirriga ahina uu mudaharaadka ilaaliyo oo hubkiisa isagoo ciidankaas wato dhinac socdo hadii ay dhacdo isku dhac ciidanka in la iska celiyo iskuna dayaan marka inay qasr caabidin waa qasrkii madaxtooyada inta la tago in halka lagu qasbo madaxweynuhu inuu xilka ka dego oo doorasho degdeg loo dareero saasana isku afkartay waxay sugayeen 29 bisha 25keedii Oktoobar oo la wada sugayay 29 kama kala gaaro in kacdoonkii lagu dhawaaqo ama lagu dhaqaaqo ayuu 25 bisha safar soo galay Xasan Cashmaawi wuxuu imanay magaalada Qaahira
waxa uu ogaanayaa isla maalinta ku xigtay oo ah bisha 16keedii in ay dhacday dhacdo cajiiba oo argagax ku noqotay oo ilaa maantana Masar ay saameynteedii ka jirto. waxa dhacday dhacdo loo yaqaano xaadithat al-Manshiya. xaafadda al-Manshiya la dhaho Qaahiro kamid ah madaxweynaha Jamal Abdel Nasser isagoo oo khudbad ka jeedinaya ayaa nin isku dayay inuu dilo 6 talqadood baa lagu riday. waxay keentay taas markaa in ninkii la qabto. ninkaas waxa uu lagu magacaabaa maxamuud cabdilatiif waxaana uu ahaa nin ikhwaan muslimiina. waxa uu sheegtay in uu isagu isku dayay ama maxay tahay uu go'aan lagu soo siiyay al-jihaaz as-sirri in uu dilo madaxweynaha. taas waxay keentay markaa in si bareera colaad dhammaystiran ay uga dhex qaraxdo ikhwaan muslimiinkii iyo Jamal Abdel Nasser. haddaba arrinka cajiibka waxa weeye ikhwaan muslimiinkii may arrinkan ka dambeeynin. wuxuu sheegay Xasan Cashmaawi al-jihaaz as-sirri ninkii markaa haystay waxaan u malaynaya inuu ahaa nin lagu magacaabo Talcat Yusuf ama Yusuf Talcat. guriga uu ku dhuumanayay bay ugu yimi wuu weydiiyay wuxuu ku yiri maadaga amray ninkan inaad dishid ama ninka maada amarka siiyay inuu madaxweynaha dilo mayagu. Cabdilqaadir Cooda oo haystay maxay tahay murshidka ka hooseeyay ku xigeenkiisa ahaa ayuu weydiiyay ku yiri yaa ninka amarka siiyay cid amarka siisay ma jirto. xataa wuxuu sheegayaa markii dambe waxa la ogaaday gidaarkii ka dambeeyay Abdel Nasser 6 talqadood lagu riday inaan wax halaala wax talqad ah ama saalbo ku dhacday oo dalolisay inaanay jirin. taasoo cadeynaysa waxa la maqlay ama 6 xabbe ee dhacday inay ahayd baaruud kaliya. arrinkuna uu ahaa arrin uu Jamal Abdel Nasser ka dambeeyay oo ugu talagalay sir uu helay in nimankaas ay maagayihiin 9 bisha in arrinkaas sameeyaan dabeedna uu kaga horeeyay. waxa dhacday 7 bishii oo ahayd 2 maalmood ka hor maalintii ay u bilaasanaayeen in la qabto madaxdii ugu sareysay ee ikhwaan muslimiinka sida Cabdilqaadir Cooda, Xasan al-Hudaybi, Yusuf Talcat, Sayid Qutb iyo dhamaan ilaa 1000 nin oo qiyaadaadkoodii iyo madaxdoodii iyo dadkii u sareeyay kamid ah ayaa halka lagu xiray. Xasan Cashmaawi isaga markaa talabka cadaatay isagoo wuxuu ku qasbanaaday inuu dhuunto oo baxsado. wuu baxsaday wuxuu tegay Saciid Masr waa Masar baadiyaheeda ayuu tegay. halkaas ayuu saxaraha muddo ku noolaa dad reer tuulada deganaa tuulooyinka ugu shisheeya xuduudda la leh saxaraha niman mujrimiina oo dambiilayaal ah oo tuuga ah ayuu u tegay. nimankaas halka ku hayay dhowr sanadood in badan buu halka ku dhuumanayay. kadib isagoo magacii iyo xogtiisii bedeshay ayuu dalka dib ugu soo noqday magaalooyinka. kadib muddo kadib wuxuu u suurta gashay inuu ka baxo oo uu u baxsado dalka Kuwait. halkaasaan ku geeriyooday. xasuus qorkan markaad akhrido runtii wax badan baad ka faa'iideysaa. waxaad ka faa'iideysaa markasta nidaamka dictatoriga ah meel kasta uu joogo waa isku mid. nidaamka dictatoriga ah ilaahay amarkii waxaa dhaqan u ah an ya'kula abna'ahu. cidda ugu sokaysay ee caawisay ee garab soo siisay ee ku soo kaalmaysay inuu soo gaaro xukunka ayuu cunaa. waa sida bisada waxa la yiri markay ubadka dhasho mid way cuntaa ka ugu horeeya waliba ay cuntaa isku qaboojisaa si kuwa kale ay awooda ku dhasho ay u hesho. kacdoon wadayaashu inta badan saasay sameeyeen. dadkii soo caawiyay dadkii halka soo gaarsiiyay ay cunaan. taariikhda kacdoon kasta bal dib u raac. kacdoon kasta oo adduunka dib ka dhacay taasaad ku arkaysaa. arka kale cajiibka waxa weeye ikhwaan muslimiinku in dhowr jeer oo fara badan oo taariikhda kamid ah ay isla khata iyo gafafkii hore ay galeen ay dib u soo celcelinayeen. laga soo bilaabo markaa koobaad ee boqortooyadu ay keentay in la kala diro. arrinka aan ilaa waxa kamid ah Jamal Abdel Nasser sanadka 20 markii ay ku guuleysteen maxay tahay kacdoonka waxa uu soo saaray in dhammaan axsaabtii siyaasiga ahayd ee jirtay oo dhammaystiran in la kala diro oo la baabi'iyo. waxa uu yimi markaa Xasan Cashmaawi muxuu ku maxay uga jeedaa anaba xisbi siyaasi aan nahay hadii aad arrinka fuliso anaguna ma shaqo ka baxaynaa ma yuu idinku xisbi siyaasi ma tihiin idinku waxtiin xisbi islaami oo diiniya wana jireysaan idinkana go'aankani idinma taabanayo. laakiin axsaabta kale xisbi wafdi iyo axsaabta kale ee faraha badan leh qaar waliba boqortooyada hore ay xiriirka leeyihiin ayaan ugu talagalay inaan meesha ka saaro. waa dulmi marka saa loo eego laakiin way la qaateen ikhwaanku bimaano iyagu ay ka badbaadiyaan halista way la qaateen. laakiin waxaan ogeyn qaacida guud ee tiraahda ukiltu yawma ukila thawr al-abyad. dibiga cadda maalinta la cunay ayaa aniga la cunaa. maalinta go'aanka la qaateen ayay iyaguna dabka ku dhaceen sababtoo ah waxa dhacday 2 sano oo kadib oo ah 1954 iyagana in la kala diray oo xisbigoodii la kala diray. qofka dambi ay ku noqotay xubinka ah ikhwaan muslimiinku inuu dambi ku yahay hantidoodii dawladdu qaadatay madaxdoodii dawladdu xirxidhay. markii dambe dhacdada xadiid al-Manshiya ay dhacday isku dayga dilka madaxweynuhu yimina waxa bay noqotay maxay tahay
in qof kasta oo maalin xidhiir la lahaa ama qoyskiisu maalin ka mid ahaa in la xidho oo lasoo qabto oo la baacsado. sida ogeed qofku tallaabo dulmiga ka mid ah hadduu ka raali ahaado waa inuu ogaadaa dulmigaasi hadhow isagana inuu kusoo kala wareegayo oo uu ku imanayo. ma rabo muuqaalku inta ka badan inuu sii dheeraado, laakiin runtii waa kitaab aan ku talinayo ciddii u baahan inay taariikh guud oo ku saabsan taariikhda Masar iyo taariikh gaar ah oo ninka noloshiisa ku saabsan iyo taariikh ballaaran oo ku saabsan kacdoonada iyo had iyo jeer waxa ay ku dambeeyaan. waa kitaab aan kula talinayo qofkii intaa raba inuu akhristo. inta kitaab kale oo aan soo akhriyay aan ku kulmi doonana waxaan kaga tegayaa salaamullaahi calaykum.